bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana ka mid ah daawadayaal wasiirka arrimaha gudaha Kenya iyo wafdi uu hogaaminayo maanta soo gaaray Muqdisho kulamana la qaatay madaxda sare ee dalka taliska militariga Mareykanka ee Africom oo xaqiijiyay dilka Bashiir Qorgaab amanduulihii Al-Shabaab ahlu sunna oo warkul ka soo saartay dagaaladii cuslaa ee dawladda kula gashay Dhuusamareeb nin Al-Shabaab u farsameyn jiray qaraxyada oo la xukumay iyo weerar culus oo lagu qaaday saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen Hirshabeelle haddii aad ugu cusub tahay ama aad ugu soo biirtay fadlan daawade subscribe channel-kan si aad u hesho wax kasta oo aan channel-kan soo gelino taariikhdu waxay tahay 8 bisha 3 Maarso sanadka 2019 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal hagaag aan ugu horeyno qodobkiina koowaad wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin wax uu ka bixiyay ujeedka ka dambeeyay safarka uu ku yimid Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu wuxuu ku sheegay in isaga iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Kenya uu Muqdisho u soo diray madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta si ay madaxweyne Farmaajo wala hadlaan xiisada ka taagan xadka labada dal kadib mowjada caqabada dhinaca amniga ah oo dhawaanahan ku soo kordhay sohdinta Kenya iyo Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee dawladdu iyo anigu uu noo soo diray madaxweyne Kenyatta si aan ula kulano dhigiisa ee madaxweyne Farmaajo ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Kenya waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo ay kala hadli doonaan sidii loo xakameyn lahaa arrimaha ka taagan xuduudaha dalka Kenya iyo Soomaaliya oo dhawaan dagaal ku dhexmaray ciidamo kala taabacsan dawladda federaalka iyo kuwa Jubbaland socdaalku uu maanta Muqdisho ku yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya ayaa daba socday wada hadallo qadka telefoonka ah oo jimcihii dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo dhigiisa Kenya jimcihii la soo dhaafay ayay ahayd markii madaxweyne Farmaajo qadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo sidii xiisada ka taagan xuduudda loo baajin lahaa xiisada ka jirta xadka ayaa salka ku haysa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo ciidamo wato gudaha u galay dalka Kenya kuwaas oo halis ku ah ciidamada dawladda federaalka ay geysay Baladxaawo dawladda Mareykanka ayaa cadaadis xoog leh saaraysa labada dawladood sidii xal looga gaari lahaa khilaafka cusub ee sababay in ammaanka xadka uu xumaado labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgarteen sida ugu dhaqsiyaha badan ay u wada fadhiistaan guddiyo ka kala socda Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labada dad iyo dal ka dhaxeeya taliska militariga Mareykanka ee Africom ayaa xaqiijiyay dilka Bashiir Qorgaab amanduulihii Al-Shabaab taliska ciidamada militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom ayaa xaqiijiyay dilka hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kaasoo duqeyn lagu dilay bishii hore ee February hadal ka soo baxay taliska militariga Africom ayaa lagu sheegay in Bashiir Maxamed Maxamuud oo afgarashadiisu tahay Bashiir Qorgaab lagu dilay duqeyn uu taliska Africom fuliyay dhabahan waxa rumeysanahay in Bashiir Maxamed Maxamuud oo la oran jiray Bashiir Qorgaab lagu dilay duqeyn uu taliska Africom fuliyay ayuu yiri afayeenka taliska Mareykanka afayeenka ayaa sheegay in weerarkaas uu ahaa mid dhanka cirka ah laga fuliyay magaalada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe waxa uu tilmaamay in weerarkaasi dhacay 22 bishii February sanadkan 2020 tan iyo waqtigaasna uu socday baaritaan ku aadan xaqiijinta dhimashadiisa dilka hogaamiyahan ayuu ku sheegay inay tahay horumar laga gaaray in meesha laga saaro qatar ay Afrikaanka iyo Ameerikaanka kala kulmayeen argagixisada sida hadalka loo dhigay dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in dilkan uu suurta galay kadib markii ay macluumaad sirdoon isdhaafsadeen Soomaaliya iyo Mareykanka hogaamiye Qorgaab ayaa dhashay sanadkii 1982 wuxuuna xiriir dhow la lahaa hogaanka kooxda Al-Shabaab waxayna dhimashadiisa saameyn ku yeelatay gudaha kooxda wuxuuna kooxda ka hayay xilalka abaanduulaha guud ee Al-Shabaab sidoo kale Qorgaab ayaa la sheegay inuu ahaa madaxii howlgallada ee dalka Kenya halkaas oo kooxda Al-Shabaab ka fuliyaan weerar badan oo qatar geliyay amniga dalkaas wuxuuna ka mid ahaa golaha fulinta Al-Shabaab wararka ku saabsan dilka Qorgaab ayaa imaanaya iyadoo sirdoonka Soomaaliya uu dhawaan shaaciyeen in laga qaaday xilalkii uu ka hayay Al-Shabaab qoraal ay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Nisay 3 February soo dhigtay barta Twitter-ka ay ku sheegtay in hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diiri Abu Cubayda uu mahad kartay Bashiir Qorgaab ka saaray golaha fulinta ee xarakada Al-Shabaab kana xayuubiyay dhammaan xilalkii hayeen
nisa ayaa sheegtay in sababtuu Axmed Diiriye u qaaday tallaabadan ay tahay kadib markii ay ka dalbadeen joojinta qaraxyada joogtada ah ee al-shabaab ay la beegsadaan shacabka ku nool Muqdisho. markaana Shabeellada Dhexe weerar culus ayaa lagu qaaday saldhigyo ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar iyo dagaal xigay oo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe. dagaalyahana ka tirsan al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in ay weerareen saldhigyo ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin duleedka Balcad ee gobolkaasi. wararka ayaa sheegay in weerarkaasi uu xigay iska horimaad toos ah oo dhex maray labada dhinac kaasoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. sidoo kale la deegaanka oo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay inay maqlayeen guuxa diyaarado dagaal oo dul maraysanaya hawada deegaankaasi. ilaa iyo haatan si dhawaa looma oga khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac ka soo kala gaaray dagaalkaasi iyo weerarkii ku horreeyintaba. xaaladda ayaa haatan degan balse ciidamada militariga ayaa howlgalla baaritaanaha ka bilaabay wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ee Shabeellada Dhexe. inta badan dagaalyahanada xarakada al-shabaab ayaa weerar gaadmaa ka fuliya jidkan oo muhiim u ah isu socodka magaalada Muqdisho iyo deegaanada Hirshabeelle. markaana ahlu sunna ayaa war ka soo saartay dagaalkii looga adkaaday Dhuusamareeb. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaanka ahlu sunna ee looga awood roonaaday dagaalkii ka dhacay Dhuusamareeb ayaa isagoo ku sugan magaalada Garowe waxa uu soo saaray qoraal uu kaga hadlaya dagaalkii ka dhacay iyo khilaafkii kala dhexeeyay dowladda federaalka. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaanka ahlu sunna ahaana madaxii hore ee xukuumadda Galmudug ee looga awood roonaaday dagaalkii ka dhacay Dhuusamareeb ayaa isagoo ku sugan magaalada Garowe waxa uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayo dagaalkii dhacay iyo khilaafkii kala dhexeeyay dowladda federaalka. war-saxaafadeed uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa uu ku sheegay in intii ay ku sugnaayeen xiri inji ee magaalada Dhuusamareeb la saaray cunno qabateen isla markaana la duldhigay ciidamo dadka u diidaya in la gala xarunta lagana soo baxo. waxa uu sheegay Sheekh Shaakir in xilli habeen ah ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay weerar gaadmaa ku qaadeen xarunta ay ku sugnaayeen ee xiri inji sidoo kalena ay jirtay cadaadis uu saaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa ay tababareen dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ee Haram Cad iyo Gorgor ee lagu talagalay la dagaalanka al-shabaab ayuu sheegay in dowladda ay ku soo weerartay hoggaanka al-sunna. war-saxaafadeedka uu soo saaray Sheekh oo aad u dheeraa ayaa wuxuu sidoo kale ku sheegay in hoggaanka al-sunna marraba ka caajisi doonin la dagaalanka al-shabaab ayna ka go'an tahay inay ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin Galmudug. ugu dambeyn beesha caalamka gaar ahaan dowladda Turkiga ayuu ugu baaqay in ciidamada dowladda Soomaaliya u tababartay ay il gaar ah ku hayaan isla markaana aan loo adeegsan arrimo siyaasadeed. madaxda ahlu-sunna ayaa dhammaan haatan ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana maalmahan u socday shirar ay uga tashanayaan ayuhuda iyo sidii loo soo celin lahaa awoodii ururka ahlu-sunna. nin al-shabaab u farsameyn jiray qaraxyada ayaa la xukumay. maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta axada xukun adag ku riday eedeysane Muuse Maxamed Axmed oo loo haysto kamid ahaanshiyaha la dagaalyahanada al-shabaab. ninkan oo maxkamadeyntiisa ay soo martay heerar kala duwan ayaa waxaa lagu weydiiyay inuu al-shabaab u farsameyn jiray qaraxyada nooca bomba F1 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya. sidoo kale qoraalka maxkamadda ayaa lagu sheegay in Muuse Maxamed Axmed oo wata bomba lagu dhex qariyay raashin sanadkii hore 2019 laga soo qabtay gudaha magaalada Marka isagoo xilligaasi u safrayay deegaanka Janaale. baaritaan dheer kadib hay'adda dambi baarista booliiska ee CID-da ayaa ninkani ku wareejisay xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida dabayaaqadii November sanadkii ina dhaafay waxayna isku howleen baarista kiiskiisa iyo eedeymaha loo soo jeediyay. dhankiisa qaranka u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto maadaama uusan aqoon u lahayn waxyaabaha lagu soo qabtay. ugu dambeyntii maxkamadda ayaa go'aan ka soo saartay waxaana lagu xukumay Muuse Maxamed Axmed 10 sano xabsi ciidan ah sida uu ku dhawaaqay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuurto ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya wuxuuna tilmaamay in xukunkiisa uu haysto fursad uu xukunka uga qaadan karo racfaan kadib muddo 30 cisho. ugu dambeyntii dalka Talyaaniga ayaa malaayiin ku soo rogay xayiraad cabsi laga qabo cudurka coronavirus. dowladda waddanka Talyaaniga ayaa waxa ay go'doomisay in ka badan 16 milyan oo qof sabab la xiriirta in looga shakiyay cudurka dilaaga ah ee coronavirus oo haatan caalamka kala xiray.
dadka ay xukuumadda Rooma ay xayiraada ku soo rogtay ayaa waxay ku nool yihiin waqooyiga dalkaasi dadka ku nool 14 gobol oo kamid ah dalka Talyaaniga ayaa waxay wajihi doonaan culays dhinaca safarada ah daawadayaal waa naga inta qodobadii aad nagala socoteen haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelka si aad u hesho wax kasta oo channelka soo